السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa maxamed darsigana maanta waxaan ku qaadanaa habka aad u fududaneyd kombiyuutarkaaga ama aad uga saari lahayd qashinka haddii uu kaa cuslaado tusaale ahaanba markaad kombiyuutar soo iibsato eed muddo isticmaasho wuxuu noqonayaa mid cuslaada waxyaabo fara badan ama qashin fara badan qaada oo ku kaydsamaan haddaba si aynu u fududeyno oo marka aad program ama software aad soo furato in si degdeg kugu soo baxa waxaynu isticmaali doonaa 4 step oo yaryar haddaba intayna cashirkeena bilaabin marka ugu horeysa waxaad tagaysaa qaybtan yar ee searching-ka kadibna waxaad ku qoraysaa my pc kadibna right click baad ku qabanaysaa kadibna properties ayaad ka dooranaysaa focuskana marka kuu soo baxo waxaad ka dooranaysaa advanced system settings kadib focus kale ayaa kuu soo bixi doona waxaad ku dhufanaysaa settingska ugu horeeya qaybta ugu horeysa ee performance ka hooseysa kadib afartan option ee yaryar ee uga baahan inaad tig ka saarto waxaad ku dhufanaysaa qaybta saddexaad ee ku qorantahay adjust for best performance kadibna apply iyo okay ayaad soo raacinaysaa kadib waad iska soo xidhaysaa dhammaan shaashadaha furan waxaad tagaysaa haddana searching-kii waxaad ku qoraysaa ms configuration kadib waxa kuu soo baxaya focus yar kadibna click aad ku dhufanaysaa waxa kuu soo bixi doona isla khaanad yar oo kale khaanadan waxaad ka doorataa boot ka dooro kadibna advanced option ka dooro kadibna khaanada yar ee kuu soo baxda number of processors waxaad ka doorataa numberka ugu weyn khaanada yar soo furo numberka ugu weyn halka kaaga soo baxa aniga 4 ayaa iga soo baxay haddana qaybtan kale ee maximum memory ku qoran tahay kor iyo hoos ayaa loo socdaa kadib kor ayaad soconaysaa numberka ilaa aad ka gaadho numberka ugu weyn ee uu ku istaago dawaan wadayaa ilaa inta aan ka gaadhiyo numberka ugu weyn ee aan ka gaadhiyo wakaas waxaa ii soo baxay 4096 kadibna okay ayaad odhanaysaa kadib waxaad ku soo noqonaysaa setup-ka ayaad ku dhufanaysaa kadib open task manager ayaad ku dhufanaysaa kadib halkan waxaad sameynaysaa programyadan-kii aanad u baahnayn dul imo kadib markaad dul timaado waxaad ka dhigtaa intaad dul timaado disable wixii enable aanad u baahnayn markaa disable kadib disable markaad ka dhigto waxaad sameynaysaa waxaad tegaysaa haddana waad iska soo xidhaysaa horta khaanadan kale waxaad ku imanaysaa haddana services ayaad imanaysaa isla qaabkii tigta ayaad ka qaadaysaa kuwii aanad u baahnayn markaas isticmaalkooda aanad u baahnayn waayo waxay inoo keenayaan kombiyuutarka marka aad shido ayay isla soo shadayaan kadib culays fara badan ayay ku keenayaan kombiyuutarka isticmaalkiisa kadib marka aad tigta ka qaado kuwii aanad u baahnayn waxaad sameynaysaa apply iyo okay ayaad odhanaysaa kadib kombiyuutarka wuxuu kaaga baahanayaa in aad baktiso ood soo shido restart now iyo restart later weeyaan marka restart later dheh kadib markaad intaa qabano functionka saddexaad aynu ku qaadanayna casharkeena waxa weeyaan waxaad soo furaysaa isla searching-kii ayaad soo furaysaa kadib waxaad ku qoraysaa ama aad taabanaysaa shiftida waxaad la qabanaysaa calaamada boqolleyda ama percentage-ka ee ku dul taalla number 5-ka kadib markay kuus aad qorto waxaad qoraysaa kale temp temp kadibna haddana shiftidii baad qabanaysaa isla calaamadii ayaad ku soo xidhaysaa kadibna boxka yar kuu soo baxa click ku sii halkan waxaad u jeedaa qashin inay ka muuqdaan waxaana waa waxyaabaha kombiyuutarkaaga culayska u keenaya ee isticmaal mana aha wax useful ah oo muhiim ah waa qashin keliyaata dhammaantood intaad highlight ka saarto control iyo plus right click qabo kadibna delete dhammaantood kadibna halkan sax saar si aanu kuu soo celi su'aalo kadib marka aad dhamayso delete ka dhameeyo kuwa uu delete garan kari waaye imika waa casharkan aan duubayo ay ka yahay oo waa codkii aan duubayay markaas programkan aan duubayo ayaa wata kadib iska soo xidh qaybtan markaas stepka afraad aynu casharkeena ku qaadanaa ee ugu dambeeya waxa weeyaan isla waxaad soo furaysaa searching box-ka waxaad ku qoraysaa my pc ama waxaad tegaysaa file explorer-ka ayaad soo kicinaysaa kadibna pc ayaad ku dhufanaysaa kadibna qaybta sida ama local sida ayaad tegaysaa right click ayaad ku qabanaysaa properties ayaad odhanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa clean disk clean ayaad ku dhufanaysaa
kadib waqti yar ayay qaadanaysaa kolba waxay ku xiran tahay inta waqti aanad computerkaaga clean up siinin ama aanad clean garaanin waxaa laga yaabaa inay muddo yar qaadato markaa waan iska suganaa kadib markuu dhameeyo waxaad ku dhufanaysaa halkan kuu soo baxda sax saar dhammaan kuwa halkan ka soo baxo oo dhah sax saar waayo waa qashinkay ka mid yihiin kadib markaa saxa saarto okay dheh kadibna delete files dheh kadibna continue dheh kadib intaa markaad samayso waxaad tagaysaa tools kadib check dheh kadibna scan drive dheh وكا uu dhameeyay wuxuu yiri Windows successfully scanned the face no error was found kadibna optimize dheh sidoo isugu habeeyo programyada iyo computerka fadlan haddii aad channelka ku cusubtay subscribe saar wixii su'aalana commentiga nagu soo qor. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.